facebook ayaa sheegay in sanadka dambe ay soo saari doonaan lacagtooda dijitalka ah libra ayay dad gaaraya 1.7 bilyan oo aan koontooyin bangiya lahayn u isticmaali doonaan qaab ay lacagta ku bixiyaan, laakiin dadka qaar ayaa warwar ka muujiyey waxyaabaha dadka u gaarka ah iyo istabamarinta lacagta. aasaasaha shirkadda Huawei ayaa sheegay in iibkoodii uu hoos u dhacay 40% bishii aynu soo dhaafnay. iminka waxay qorsheynayaan inay kala barjoojiyaan samaynta moobaylada. shirkaddan oo Shiinuhu leeyahay ayaa Maraykanku cunaqabatayn ku soo rogay, iyada oo ay Washington ku doodayso inuu khatar ku yahay ammaanka, laakiin Huawei ayaa ku adkaysatay inay ka madax bannaan yihiin dowladda Shiinaha. dhinaca kale, weli Shiinaha ayaa kaalinta koowaad kaga jira kombiyuutarada casriga ah. Shiinuhu waxa uu soo saaraa 500 oo aaladood ee uga sarreeya qalabka kombiyuutarada. Maraykanka ayaa weli soo saara labada kombiyuutar ee caalamka ugu casrisan, isaga oo weli Shiinaha kaga sarreeya dhinaca awoodda. kombiyuutarada adduunka ugu awoodda badani waxa ay ilbiriqsigiiba sameeyaan bilaayiin qiyaas ah, waxaana loo isticmaalaa samaynta matoorada diyaaradaha iyo weliba saadaalinta hawada. tani maaha muuqaalka baraha bulshada ku kulanto ee uu siyaasigani bakistaaniga ahi filayey. iyagoo ku jira shir jaraa'id oo toos ah ayaa waxaa wejiyadooda laga arkaya muuqaalka bisadda ee sawirrada kaftan ahaan loo dul saarto muuqaaladaasi. waxaa la arkayaa iyadoo wasiirku leeyahay shaarubo iyo dhegaha bisadda. muuqaalka oo la sheegay in uu si kama ah u samaysmay ayaa caalamka oo dhan laga daawaday. taxadir ayaa la samayn doonaa mustaqbalka si aanay tani mar kale u dhicin.